kulanti wacan daawadayaal waxaynu eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee ololaha doorashada iyo sida ay wax ay u socdaan. waxaa 7 maalin ah ay ka hartay maalintii loo aseeyay in la qabto doorashada madaxweynaha Soomaaliya, taas oo waqti dheer soo jiitamaysay. doorashadan oo ilaa hadda ay isku soo taageen in ka badan 15 musharax ayaa waxa maalinta Axadda oo maanta ku beegan la filayaa in ay bilaabato diiwaangelinta iyo shahaadaysiinta rasmiga ah ee musharaxiinta doonaysa in ay u tartamaan xilka ugu sareeya ee dalka. siyaasiyiin xilal kala duwan horay dawladda uga soo qabtay iyo kuwa ku cusub saaxadda siyaasadda iyo hoggaanka ayaa toddobaad kadib isku hirdin doona loolanka hanashada xilka madaxweynaha. muqdisho oo inta badan ay ku sugan yihiin musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynenimada ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ka socda kulamo iyo shirar gooni ah oo u dhaxeeya musharaxiinta iyo xildhibaanada labada aqal. waxaa bilowday shukaaminta xildhibaanada iyo iibsiga codadka, iyadoo la filayo in codadka xildhibaanada ay noqdaan kuwii ugu qaalisanaa abid oo ay gaari karaan ilaa $100,000 halkii codba. si kastaba musharaxiinta qaar ayaa ka cagajiidaya in ay lacag ay bixiyaan, sababtoo ah waxaan hubnayn in xildhibaanka lacagta qaadanaya uu codka siin doono, sida marar badan baa horay u dhacay oo cashar laga bartay. 8 ilaa 10 bisha ayaa la filayaa in ay guddiga doorashada madaxweynaha ay musharaxiinta soo dhammaystira shuruudaha laga rabo ay siiyaan shahaadooyinkoodii. 11 ilaa 12 bisha ayaa sidoo kale la dhageysan doonaa khudbadaha musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha 10aad ee Soomaaliya. si kastaba doorashada madaxweynaha ayaa la qabanayaa 15 bishan May, oo sidoo kale ay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobonimada doonka SYL ay ku beegan tahay. dhinaca kale haddii aynu fiirino waxa la soo saaray shuruudaha ay ka mid tahay saxiixa 20 xildhibaan oo lagu xiray musharaxiinta madaxweynaha. guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya waxa ay soo saareen habraacay shuruudaha laga rabo musharaxiinta xilka madaxweynaha ee doonaya in ay tartamaan. shuruudaha oo ka kooban 9 qodob waxa ugu weyn in musharax kasta laga doonayo lacag dhan $40,000 Mareykanka, waxaana la faray in ay soo buuxiyaan dhammaan 9 shuruud ee habraaca diiwaangelinta musharaxiinta xilka madaxweynaha. qodobada 9 ah ee laga doonayo musharax kasta ayaa kala ah: warqadda aqoonsiga ID ama baasaboor, warqadda codsiga musharaxnimo, warqadda soo jeedinta musharaxa. qodobkan ayaa laga rabaa musharax kasta in uu soo saxiixo form 20 xildhibaan ah. xildhibaan kastana waxaa loo ogol yahay in uu 3 musharax ugu saxiixi karo. warqadda cadeynta buuxinta shuruudaha musharaxnimo, 400 oo nuqul oo barnaamijkiisa doorashada oo daabacan, iyo nuqul elektaroonig ah ka hor maalinta hadal jeedinta. taariikh nololeedka CV, 2 sawirrood sara, warqadda cadeynta lacag qabashada, warqadda aqbalaadda iyo hoggaansamida habraacyada iyo natiijada doorashada. ugu dambeyntii guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa faray musharaxiinta inay soo dhammaystiraan dhammaan shuruudaha ku hor xusan si loo guddoonsiiyo shahaadada musharaxnimo. waxaa la filayaa saacadaha soo socota in ay bilaabato in ay isdiiwaangeliyaan musharaxiinta, waxaana la filayaa aqalka sare in ay noqoto goobta lagu diiwaangelinayo musharaxiinta xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya. goobtaasi oo la shaaciyay waxa lagu diiwaangelin doonaa musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya iyo koontada lagu shubayo lacagta isdiiwaangelinta musharaxiinta. guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha waxa ay soo saareen warqad ay ku shaaciyeen in diiwaangelinta musharaxiinta ay saaka 3 ama 9 barqannimo ay ka bilaabanayso xarunta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. sidoo kale warqadda waxa lagu soo bandhigay tilmaanta koontada lagu shubayo lacagta isdiiwaangelinta musharaxiinta oo gaaraya $40,000, waana bangiga dhexe ee dawladda. guddigan ayaa waxa ay shalay galab ay soo saareen habraaca shuruudaha laga rabo musharaxiinta xilka madaxweynaha, waxaana shuruudahaasi ay ka koobnaayeen ilaa 9 qodob. daawadayaal wixii aragti fikira waad noo dhaafi kartaan qaybta hoose ee commentiga. waad mahadsantiin.